kusoo dhawaada muuqaal cusub kaasoo daba socda muuqaalkeenii hore. haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar baleelkana furo si ay kusoo gaaraan muuqaaladayadu markasta. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sida loo trade gareeyo cryptocurrency. brokerkan wuxuu kaaga baahan yahay markaad muuqaalkan daawato saddex qaybood. qaybta koowaad oo ahayd in profileka aad buuxiso, iyo qaybta labaad oo ahayd verification kaas oo ahaa in ID card nationalkaaga aad geliso ama passport ama license gaari aad geliso, iyo inaad geliso addresska magaalada aad joogto kaasoo waraaq ah. waraaqdaas ay ku qoran yihiin lambar bangi, lambarkaaga, meesha aad degan tahay iyo magaalada aad joogto, wadanka aad joogto, intaas ay ku qoran yihiin. muuqaalkaas waxaan ku sheegay inaan addresska ka caawin karo. ka dhalinyar badan ayaa garan weydi meel ay igala soo xidhiidho. marka halkan aad ku dhufato linkiga. muuqaalkan waxa kaloo aan ku hoos dhigay linkiga brokerka. waxaa jira brokero badan oo haddii aad google-ka ka baadho just market kuu soo baxaya. markaas si aanad ugu khaldamin kuwa hackeriska ah, linkigan ayaad iska diiwaangelinaysaa, kadibna muuqaalkan ayaa daawanaysaa qaabka la isku diiwaangeliyo. halkan kale waxaa kuugu jira courses forex trading ah oo aad ka soo baranayso system trade-ka aan ku trade gareeyo. halkan ayaad ka helaysaa. halkan ayaad igala soo xiriiraysaa. marka xaggana waa X Twitterkayga waad ku soo biiri kartaa. marka halkan ayaad ku dhufanaysaa marka doonayso inaad ila soo xiriirto. kadib Telegramka ayaa kuu soo kacaya, open ayaad leedahay haddii aanan hore ugu jirin, join ayaad soo leedahay. halkan waxaa ku soo gudbinaa wararka iyo newsyada cryptocurrency-ga ka soo baxa. marka soo timaado halkan ayaa kuu soo baxaysa, adiga join ayaad leedahay marka ugu horeysa. kadib halkan ayaa tegaysaa description-ka qaybta koowaad. marka qaybtan ayaad ku dulfanaysaa, kadib xasan ayuu kuugu soo baxayaa. halkan waa chat, waa kan halkan aad igala soo hadlaysaa. marka dad badan oo WhatsApp-ka igala soo hadla ayaa jira, laakiin Telegramkan badanka isticmaalaa. halkaas ayaan joogaa, marka si degdega ayaan kuugu soo jawaabayaa. marka halkan ayaad igala soo hadlaysaa. halkan waa website-keena, waad ku dhufanaysaa. halkan waxaad ka heli kartaa iyadana casharo cryptocurrency course ah oo dhammaystiran. casharadaas ayaad soo fahmaysaa haddii aad cryptocurrency-ga ku cusub tahay. haddii aan dib ugu soo noqono, casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan waxoogaa ka tilmaamo brokerka oo casharka hore ka yarbooday. marka brokerka waxaa u kala qaybsamaa saddex qaybood. qaybtan koowaad horta waa my account-kaagii oo hadda lacagta igu jirta. lacagtana waa 200 oo sida arkaysaan. waxaana muuqaalkii hore kaga soo hadlay anigoo lacag ku shubanaya $20 ayaan hadda 200 gaarsiiyey, anigoo istaraatiijiyadana iyo systemkan aan u trade gareeyo. hadda ku sheegi doono u trade gareynayo crypto, weliba cryptada anigoo oo isticmaalayo oo aan forex trading ku trade gareynayn, laakiin crypto kaliya only aan trade gareynayo. marka waa fundingkii oo halka lacagta deposit ka soo oranayso. aniga waxaan ku soo dhigtay lacagta Binance ayay igu jirtay. marka USDT ayaan isticmaalay. USDT-daas ayaan isticmaalay anigoo coinkan ayaan isticmaalay brokerkan. marka card haddaad isticmaalaysana bankigaaga ayaad halkan gelinaysaa, oo kadibna lacagta ayaad ku soo shubanaysaa. hadhowna bankigaaga unbaad ugu darow ku leedahay oo aad kula bixi doontaa. halkan ayuu kuu soo dhigayaa bankigaaga. qaybtanna waa transfer, waxaa lagu transfer gareynayaa akoonnada oo aan gadaalkaaga sheegi doono. halkan iminka akoonkan ayaan isticmaalayaa. marka haddii aan doonayo akoon kale inaan lacagtayda u wareejiyo, road spread ayaa isticmaalaya oo aan dhowaan soo wareegay. adigana waan ku tusi doonaa. marka lacagta ku jirta ayaad xagan gelinaysaa. halka aad u wareegayso ayaad gelinaysaa MT5, halkana lacagta ayaad gelinaysaa, kadibna transfer baad leedahay. saas haddii MT4 aad isticmaal doonaysana halkan ayaad ka doonaysaa. MT4-ka ayaad leedahay iigee lacagta. marka intana waa transfer, way iska fududahay. marka qaybta aan ka hadlayana waa qaybtan marka broker akoonka aad kasii furanayso, qayb akoon ah aad kasii furanayso brokerka. marka open ayaad leedahay. halkan akoonada wani horena u sheegay waa saddexdan. standardku wuxuu leeyahay spreadkiisa badan 0.30. marka trade-ka qaadataba los ayaad ku jirtaa oo spread ayay ku dul saaranayaan. leverage-kuna waa lacagta lagu kobcinayo, spread-kuna waa korkan u dhaxeeya qofku halka uu ka iibsanayo iyo halka uu iskaga iibinayo. spread-ka u dhaxeeyo iyo leverage-kuna waa lacagta akoonkaagan kuugu jirta lagu kobcinayo. no commission waa ka koowaad, waa no commission. lacagta lagu soo shuban karaa ee ugu yarna waa $10. bro ayaa kan la yiraahdaa, spread-kiisu waa 0.10 bps way. leverage-kuna waa isku wada mid, no commission.
way snap and row spread waa bila spread isagu oo row waxay ku sheegaysaa inuu yahay bila spread laakiin commission $3 ayaa laga qaadaya marka aad lacag la baxayso marka la gasho trade-ki intaas laga goosanaya inkastoo lagu qaybinayo marka isticmaalayso trade-da trade walba wax yar laga jarayo marka aad faa'iido marka fasaarto laakiin lacag laga ma jarayo waa marka aad faa'iido marka lacagta ugu yar ee lagu soo shubanaya labadan waa isku mid hadaad kan isticmaalayso waa $200 marka anigu hadda labkana ayaan isticmaalaa laakiin haddii aan lacag badan haysan $10 baad ku bilaabi kartaa istaraatiijiyadan aan hadda ku sheegi doono ayaad isticmaalaysaa kadibna sidaas ayaad u baasinaysaa marka aad baasiso ee 200 gaarsiisid kan labaad furan ee ka saddexaad lacagtaada u wareeji adigoo tegaya qaybta transfer ee aan hadda ku soo sharaxay marka MT5 weeyaan kan MT4 kana waa kan waa isku wada mid labadooda halkan ayaad ka kala furanaysaa marka intaas ayaan ku soo koobayaa brokerka laakiin hadda waxaan ku bilaabi doonaa qaybta trade-ka saan u trade gareeyo hadda waxaad la soo samaysan doontaa trade view gana sida loo samaysto waxaa jira muuqaalo lagaga hadlay waxaa jira muuqaalo iyaguna lagaga hadlay trade view sida loo samaysto waxay ku jiraan Telegramka aan ku tilmaamayay marka waxaan ku tusi doonaa horta xagan waa time frame-kii oo halkan yar ayaa la furaysaa kadibna halkan kolba kaad u baahan tahay ayaad saaraysaa kadibna wuxuu soo biirayaa halkanna waa qaybtana waa waxyaalaha aad hadhow calaamadahan oo kale hadii aad lacag markaad galayso lacagtii oo kale BBSki ayaad kan ku qaadanaysaa dhammaan kuwana halkan ay ku jiraan khayr baad ku haysaa halkan aad ka soo dooranaysaa wax saa culus ma waxa kale oo iyaduna adag sida la soo dooranayo aniga hadda BTC ayaa igu jirta Ethereum ayaa igu jirta Bitcoin ayaa igu jirta Cardano ayaa igu jirta XRP ayaa igu jirta Solana ayaa igu jirta Coin ayaa igu jira marka Coin-kaasaan ka saari doonaa saan ku tusalkan balaaska ayaa tegaysaa kadibna halkan Coin ayaad ku qoraysaa Coin markaad ku qorto waxaad doonaysaa Binance calaamadeeda leh halkan yar balaaska ayaad ku dhufanaysaa dhammaan kuwan san ayaad ku soo darsanaysaa intaas sare oo forex trading-kii xabidan dahabkii away tan waa Bitcoin marka waxaan ku horeyn doonaa Bitcoin oo ah mother of cryptocurrency hooyada suuqa cryptocurrency ayaan ku horeyn doonaa waxaan tigi doonaa 12 bilood ayaan tigi doonaa arkaysan waxaan joogaa waxaan soo galay Bitcoin ayaan hadda joogaa Bitcoin ayaan xoogaa yar ku sharaxi doonaa sida aragti ahaan ila muuqato waxa Bitcoin hadda shaqeynaysaa 6 sano ay shaqeynaysaa oo xagan lagu soo dhigay inkastoo laga jaray intii kale laakiin 20kii ayaa lagaga soo bilaabay ilaa 25kii ayaa hadda la taagan yahay marka Bitcoin labadii sano ee 20kii iyo 22kii kor ayay u socotay 23kiina way daadanaysay 24kii iyo 25kiina kor ayay u socotay halka ay 25kana way daadanaysaa ay leeyihiin marka systemka waa isticmaali kartaa halkan waxa kaaga cad marka in Bitcoin iyo crypto oo dhan aan investment lagu samaysan karin maadaama ay sanadkan iyo sanadkii daadashada laakiin isbedeli kartaa oo sanadkan waxay noqon kartaa inay kor u kacdo laakiin sanadkan sida uu qorshaysan waxa ay ku wadaan inay daadato sanadka dambana ee labada sano ee dambe ku xigana ay kor u kacdo 26ka iyo 27ka marka waxaan tigi doonaa Moit bisha ayaan joogaa hadda bishan hadda aan ku jirno waa kandalkan u dambeeya bishii horena waa kan bishii koowa marka kandalkan aan ku jiraana waa bishan hadda weekly ayaan tegayaa marka kan ayaan calaamadanayaa kan marka calaamsado weekly ayaan tegayaa si aan weekka u ogaado weekka maadaama bishan week aan weli samayn oo ay 5 marayso week waa 7 cisho marka hadda wax week may samayn waxaan tigi doonaa dailiga sida ay igu sii kala baxdo sidaan hore ugu sheegay waxay maraysaa maanta bisha 5 marka muuqaalkan duubayo 1 2 3 4 5 oo taa bisha 5 1 2 3 4 5 shantaas ayaad qiimeynaysaa marka dailiga joogto shantan ayaad qiimeynaysaa waxa leedahay halkii ugu sareysay ee suuqu tagay buy stopkii ugu sareeyay waa kan inkastoo buy stopka ka aan ka dhigto oo kan uu yahay mid sell stopkii uu soo hooseeyna waa kan labadaas ayaad isticmaalaysaa marka hadda waxaad arkaysaa in 83,595 ay marayso waxaan isleeyahay aragti ahaan in la soo xiro inkastoo suuquba uu soconayay
hoos markii aan soo eegay laakiin waxa dhici kartaa in buy stopka sare la soo dhammaystiro shiftiga uu samaystay suuqu marka qaabkaas ayaan u trade gareeyaa anigoo markaa sii taga 4 hour ayaan sii tagi doonaa si aan u sii eego 4 hourka marka imika in waxa ugu dhow shiftigan ayaa ugu dhow shiftigan ayaa ugu sareeya 4 hourka marka halkan way ugu hooseysaa shiftigan kan kalena waa ugu hooseeya shiftigan marka saas aan trade gareeyaa badanka hadda waxa arkay suuqan inuu fursad fiican ay ka bannaan tahay maadaama la marayo ka badna lacagtu ay joogto 503 ay joogto saddexdii kandal ee ka horeeyayna uu soo daadanay marka asan ayaa u dhigaysaa TP-gaaga oo halkan ayaad fursad ka raadsanaysaa fursadaas oo aad ka bedinin lot size-kana 0.03 kama bedin doontid MT5-kana waan kuu sharaxi doonaa MT5-kana markaa si fiican ayaan kuu sharaxi doonaa marka muuqaalkan halkan imka aan ka baxo intan marka halkan ayaa trade ka raadsanayaa halkan waa iska yareynaya stop loss-ka kadibna waxaan qiyaasayaa inuu shiftiga u sareeyo inuu soo jeediyo inkastoo shiftiga yar oo kale ka hooseeya marka shiftiyadan ka hooseeya badanka ayaa ku trade gareynaya kolba marka shiftigan la dhammaystiro waan dalacayaa waxaan tegayaa shiftiga kale ku xiga halkaasaan TP-ga ambaan yar turkin doonaa kolba halka ilaa inta ugu sareysa la gaarayo halka ugu sareysa waa 80 halkan joogaana waa 80 waana inta badan uu Bitcoin labada cisho ugu dambeeyay ay ku noqonaysay markii ay suuq soo daatay kadib halka uu marna gaaraya marna halkaas uu gaaraya marka intaas uu ka trade gareynayay labada cisho ugu dambeeyay sidaas aanan u isticmaalay marka istiraatiijiyadan oo dhammaystiran waxaad ka helaysaa Telegramkii aan kuu sheegay intii aanan muuqaalka bilaabin halkaas ayaad ka daawanaysaa kadib marka aad soo fahanto istiraatiijiyada ee systemka waxaad la imanaysaa kasta way qaadanaysaa haddii ay forex trading tahay haddii ay crypto tahay marka muuqaalkan waxaadana sidaas oo kale aan u samayn doonaa Ethereum labadan ayaan isticmaalaa badanka haddii aad doonayso in group lagu daro Ethereum la soo dhigo kaasoo arday badan ay ku jirto marka kaas ayaan kugu dari doonaa ayaad kala soo socon doontaa muuqaalkan waxaan ku xigsiin doonaa sida M5-ka loo isticmaalo iyo sida TP-yada loo qaato muuqaalkaasi intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa arday badan ayaa soo codsatay inaan muuqaalada soo koobo marka sida waxaad kaloo idiga codsanayaa muuqaalada aan soo dhigo badanka like ma saartaan muuqaalkan la bilaabatan qof oo kaliya ayaa like saaray dadka subscribe-ka ana waa 5,000 marka hoos u dhac weyn ayaa ku yimid YouTube-keena marka muuqaalkan insha Allah wayna saartaan ilaa 500 oo like si aan macasharadan oo taxanaha Sidee igu sii wado waqti badan iyo juhdi badan ayaan geliyaa muuqaalada marka ay duubayo aniga hadda akoonkayga waxa ku jira $200 marka insha Allah halkaas ayaan ka sii wadi doonaa trade-adana ardayda doonaysa inay la qaadato halkii aan sheegay inaad igala soo xiriirto ayaad igala soo xiriiri doontaa groupkaasna waan kugu dari doonaa marka haddii aad halkan muuqaalka soo gaadhay please waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like ta taabato adigoo halkan taabanaya comment ka bixiso wixii faala adigu reebtaan muuqaalkana adigu dhiirigelisaan ilaa 500 oo like aad saartaan wixii caawin iyo tabashana adiga baahantiin na adigu la soo wadaagtaan qaybta Telegramka aad sheegay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh